السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع شرفت لأن نقول حلن ونسود وين مر لبعض يوم صدحات بإن شاء الله تعالى. قولي جني وصدح جيفا يفرد جي عنتدي وهرجيس جارهان حافظ تجير معمل قولي جني هذا كسان إن شاء الله تعالى وقولي هذا قروح بدن أما ما شاء الله يا يعني دويت وأنا قاعدين صدوبني قوليهن أو كوحة فيديو مال دويت أنا قاعدين صدوبني laakiin may sidan uma dhamaystirnayn halka hoose kamarada imika ku hayna ugu hooseysay tuubooyin ka soo jeedaan waxa la marinayaa rinji madow insha Allah taala rinji madow la marinayaa wali gurigu uu socdaa xaal baa u dhiman qolaalka ayaan in tusaynaa si aad u fahantaan insha Allah taala gurigani waa 14 mitir cabirkiisu ma weyna laakiin waa guri aad u fiican oo sanad garatiina leh iyo 6 bilood mid ahaan buu leeyahay waka halkaas ka soo noqonaya guriga halka yar calaamada ay ugu shaqeysa aan ku hayay kamarada ayuu ka soo noqonayaa gurigan gudihiisa ayaynu gali doonaa insha Allah taala gudaha inaynu gali waa kan gurigu waa sidaa ma sha Allah guri aad u qurux badan ma sha Allah maalintii dhoweed muu lahayn intaan cid aragtay fiidiyoga naamad daawatay ama aragtay muu lahayn madowgan yar iyo maxaan ku dhahaa waxaan rinjigan gargaarka la mariyay gudaha inuu gali gurigan hal gaari ayaa deerka galaya si fiican ma sha Allah taala doonaya guriga xashiishkii baa dhex yaala iyo rinjiyada iyo wixii baa ku socda hal gaaro ka bogtay insha Allah taala halkan rinji baa la marinayaa madow insha Allah taala waka ma sha Allah macmiil sharafta leh wuxuu kani waxa weeye waa madbakhi ma sha Allah madbakhi aad baa loo waxay ama loo hagaajiyay waa madbakha weyn halkan halkii bilaacadi wala jari doona insha Allah taala furiyarna waa loo sameyn doona waka ma sha Allah qada dibadda uu leeyahay waa xagga dibadda ku yaala madbakhu ma aha madbakh gudaha la galiyay ma sha Allah madbakhu sidana loo mariyay maxaan ku dhahaa waa kan madbakhu ma aha inta yar mid degaysa macnaheedu xadegaya ma aha waxa weeye jaajuur baa hareeraha laga mariyay sadarka saamba hareeraha laga mariyay markaas si aynan intan yar u degin ayaa looga fikiray insha Allah taala halkana walka samkaas la dhigan iyo wixii oo dhan waayahay guriga gudaha aynu galaynaa gurigani albaabadiisu waa turki ama waa albaab cadaan insha Allah taala waaya kan waa hurdadii aantii dhaweyd albaab kuma xirnayn waayahay ma sha Allah waa albaab cadaan oo turkiya halka yar buush bay ku leeyihiin halka arkaysaan buush bay ku leeyihiin qabti bayna lahayn macnaheedu kabadhigi waa kan waka kabadhigi arkaysaan kabadhigi waka guriga shaqa ka socota wali lama hayno halkan shaqa ka socota waa kan halka muraayad baa lagu xirayaa ma sha Allah saxanka yar muraayad lagu xirayo weeye insha Allah lagu dhexdhe meedinay wali wax badan baa u dhanniba waayahay hurdadaynu galinaa qolkii wuxuu xidhan yahay alaab baa lagu yar xidhay yani namadii ka shaqeynaya albaabada ayaa alaab ku xidhay albaabadu waa nooca albaabada ka shaqeynaya waa qol fiican oo ma sha Allah oo iska dhexdhexaad oo fiican waayahay oo hurdadii weeye halkana waa daarad weyn daarad fiican oo ma sha Allah weeye kan waa qol oo man alaabtii wixii dhex yaala qol fiican oo ilaa laba qof baa seexan kara meelaha oo laba sariir baa dhigi kara gabadhood yaryar عنه وكان ما شاء الله كان نوع قل كان ويركب يا سيدي كان موين أد موين كان رطافي عنه كان هذا موينه قل وين معها وهي كان نوع قل كان فرد أد وين فرد هي أد وين أما قل بحد هذا ما شاء الله جوري كان معمر قيمه يسوع وشانيو konton ilaa 250 baa laga bilaabay waxaan si gaar ah ayaa loo qalabay daaradan iyo fadhiga sadarka saamba ma sha Allah waa kan aad buu qurux badan yahay fadhiga halka waxa la gelin doonaa halka waxayro madow bal saa loo dhex gelin doonaa insha Allah taala marka qofkii looga baahda fadhigaas oo leeyahay shidan yahay waan u soo dir doonaa insha Allah taala حقا بعض دارد وين بهالكنا
marka halkaa marka saa luuqa looga laabo halka waxaa jira wakaa suuliga public ah waaye gurigu waa qolkan oo fadhigiya waayahay iyo qolkan waayahay akayana leeyahay iyo kan iyo hurdadii oo tana waaye dibadda marka saa loo hurdadii oo tana lacag inuu ku qabto yar dajiyo wata hurdadu waa hurdo weyn oo fiican ma sha Allah hurdada iyo fadhigu aad u weyn labada qol ee kalena kana uu weyn yahay kanina uu koobaya kanina uu yar koobaya wallahi mal guriga imka wali daaradu waa caynka iyo fadhiguba fadhiga daaraduba waa caynka fadhiga daaraduba waa caynka insha Allah taala waaye waa kan saa markii loo soo baxo albaabka jaynaska laga soo baxo gurigan macmiil waa kan maxaan ku dhahaa sidaa weeye rinji Ethiopian la yiraahdo ayaa lagu sameeyay oo uu ka duwan yahay guryaha kale maxaa yeelay rinjigan waa rinjigii maydhmi jiray oo rinji cadaan ah oo rinji Ethiopian ah idinku dhaweeyo waa rinjigaas uu maydhmayaa ma sha Allah waa rinji maydhmayaa maaha rinjigii markii roobku doo macnihi roobku daan buu maydhmayaa gurigu sidaan buu dhalaalay madbaqi baan ku soo labacday waaye deyrku waa sidan guriga gudihiisa markii la soo galo